waa agoon aan awoodin inay iibsadaan dharka ciida oo asaagooda ay kala qayb galaan farxadda ciida balse kaalmada dharka ah ee ay ka heleen dhalinyarada isxilqaantay ee ogaal danyar waxa ay siisay farxad taas oo ay wejigooda laga dheehan karay qaar ka mid ah waalidiinta carruurta ayaa ka mahad celiyay dharka loogu qaybiyay carruurtooda maadaama ay ciidul fidriga fooda nagu soo hayso وأنت ساعدي الله ساعد. ما نقصت مساكين أما قوم تجار الله وجاري. مقعي سمسم داين شيلو. waxaan ilaahay am hadda u sugnaatay maanta agoontan dadkii ka farxiyeen dhalinyarada soo aruursatay oo fiirisa xaaladda agoontan ay ku sugan tahay maanta ay ku saacidiyeen inay ka farxiyaan oo dharkooda ciid u gadaan ilaahay waxa uu bariyay in jisadooda janno Allah ugu dhigo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada maamulka degmada Waabari ee gobolka Banaadir Cali Cabdulqaadir Karaama ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in la farxad geliyo carruurta agoonta agoontu way ka badan tahay inta halkan fadhiso iyo inteed kale way ka badan tahay laakiin waa intii ay gacanta gaari kartay walaalaha muxsiniinta ee soo dhiibay xaqal ciidkan carruurta lagu ciidsiinayo iyo intii ka shaqaysay oo ku dhaqaaqday waxaan leenahay Allah idinka abaal mariyo jazaakallahu khayran ka ogaal danyar Ali Salaan Diini ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ku dhaliyay howlahan ay ku caawinayaan agoonta Soomaaliyeed walaalayaal macnaha kaliya wuxuu yahay ogaal danyar u taagantaa annagu haddaan dadkeena danyarta u istaagno oo aan gadaal iyo cirka iyo meel kala fiirin annaga isku filan qof kasto annaga naga mida ama ganacsi ha ahaado ama dhalinyaro ha ahaado ama waayeel ha ahaado kaliya dadkeena tabartay haddaan caawino dhibaatada maanta Soomaaliya ku jirta waa ka baxaynaa gudoomiyaha arrimaha siyaasadda iyo amniga degmada Waabari ee gobolka Banaadir ahna kusimaha gudoomiyaha degmada Waabari Jamaal Cali Maxamed ayaa ku dhiirigeliyay dhalinyaradu inay ka qayb qaataan horumarka dalka waxa aad ninkugu bogaadinaya ninkugu hambalyanaya aan isii faraya inaad ku sii taagnataan inaad sii xoojisaan taakulantana u sameynaysiin dadkiina danyarta agoonta walaalaha dalka ciida wax walba u qabanaysaan Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho